Aisho Speed shakhsiga ugu hadal haynta badan social media. sidoo kale YouTuberka kaliya ee subscribe-kiisa si xawli ah ay ku socdaan 24 saac gudahood ayuu ku helay 300,000 oo subscribe. sanad ka hor wuxuu haystay 10,000 oo subscribe. haddadaan muuqaalka aad daawanaysana wuxuu marayaa 11.5 milyan oo subscribe. haddaba waa kuma wiilkan da'da yar ee ka waalay dhalinyarada social media, TikTok-ga, Instagram-ka, YouTube-ka, meel walba oo aado muuqaaladiisa ayaa ka soo horbaxayo waliba asagoo u qaylinaya sida eyga. Aisho Speed waxa uu ka mid noqday dadka caanka ah ee ugu saameynta badan social media. ma ahan qof soo gudbiya muuqaalo waxtar leh oo dadka ay wax ka faa'iidayaan. in sida eega uu u qayliyo ayaa maanta sabab u noqotay in meel walba laga hadalhayo. 2017 ayuu YouTube-ka ku soo biiray Aisho Speed, wuxuuna ku bilaabay ciyaarista muuqaalada geemamka kala duwan sida geemka uu aadka u jecel yahay mar walbana uu ciyaaro NBA 2K, Fortnite iyo Highlights. laakiin waagaas uu YouTube-ka ku soo biiray ma uusan joogteyn jirin isticmaalka YouTube-ka. 2020 ayuu toos u soo galay YouTube-ka, wuxuuna ku soo galay asagoo live streaming sameynayo in muuqaaladiisa toos loo daawado. waagaasna wuxuu ku bilaabay ciyaarista geemka NBA K20. maalin walba ayuu live soo galay YouTube-ka asagoo ciyaaraya geemkaas, wuxuuna waday muddo bil ah asagoo aanan kala joojinaynin. waagaasna views badan ma uusan heli jirin, kaliya waxa u daawan jiray 10 qof ilaa 20 qof oo kala socotay xagga live-ka. muuqaalada uu YouTube-ka live-ka kasoo galana waxay socon jireen 3 saacadood ilaa 4 saacadood inta u dhaxayso. geemka marka laga badiyo Aisho Speedna waxa uu sameyn jiray reaction ama ficil celin ee dadka aad oo la yaabeen, sida asagoo aad u xanaaqayo, alaabta agagaarkiisa taalana jajabinayo, sidoo kalena uu caytami jiray. oo marka geemka looga guuldareystay ficil celintiisa aad ayay dadka oo la yaabi jireen. laakiin dhamaadka 2020 isbedel ayuu YouTube-kiisa ku sameeyay. wuxuu bilaabay inuu soo jajaro muuqaalada uu ku guuldareysanayo geemka asagoo aad isku xanaajinayo, kadib si caadi ah ayuu YouTube-ka u soo dhigay asagoo u sameeya taytalo dadka soo jiidanayo, sababtoo ah wuxuu ogaa in dadka ay aad u jecel yihiin inay arkaan asagoo xanaaqsan. muuqaaladaas asagoo xanaaqsan uu soo dhigayna dadka aad ayay u daawanayeen. kadib waagaas wuxuu bilaabay in YouTube-kiisa uu soo koro 10,000 oo subscribe ayuuna helay. sidoo kale dhinacna live-kiisa ayuu ka sii watay oo waqtigiisa wuxuu u kala qaybiyay in live uu soo galo muuqaalada live-kan intuu soo jajaro oo YouTube-ka caadi u soo geliyo. October 2020 ayaa YouTube-ka laga baangareeyay oo laga mamnuucay in live uu soo galo. YouTube-ka wuxuu mooday in Aisho Speed uu jiro 12 sano. sharciga YouTube-kana ma ogola in qof 13 sano ka yar uu live soo galo. laakiin waqti kadib waa loo fasaxay, wuxuuna ku soo laabtay live-kiisa. geemkii uu jeclaa ee aadka u ciyaari jiray NBA 2K ayaa soo baxay update-kiisa cusub, waxaana soo baxay NBA 2K21. sida caadada u ahaydna wuxuu bilaabay in geemkan uu ku ciyaaro si live ah. bilowgii 2021 wuxuu ku soo kordhiyay ciyaarista geemamkiisa geemam kala duwan sida geemamka horrorka ah ama cabsida ah iyo geemka Fortnite. bilowgii 2021 qof hacker ah ayaa wuxuu helay IP address-ka iyo macluumaadka Aisho Speed, waxaana u fududaatay hackerkaas in YouTube-ka Aisho Speed uu ka xiro live inuu soo galo. Aisho Speed wuxuu iska soo duubay muuqaal oo ka codsanayo qofkaas hackerka ah inuu iska daayo. How do I change my IP? I cannot stream. Whoever is booting me, please stop. Hit me up on Twitter ID. We can figure something. muuqaalkaas uu iska soo duubana aad ayuu calaacalayay, waliba asagoo ka tuugayo qofka hackerka inuu iska daayo. muuqaalkaasna waxaa daawaday dad aad u badan, waliba qaybta commentiga ayay ugu soo qorayeen ayagoo la yaaban qaabka uu muuqaalka iskaga soo duubay, oo dadka ku xiran oo followerska u ah way iskaga ciyaari jireen ayagoo u soo qorayo commentiyaal cay ah. marka uu xanaaqsan yahana aad ayaa loo daawadaa. marka uu xanaaqsan yahay oo uu qaylinayo muuqaaladiisa intay ka duubtaan ayaa waxay soo dhigan jireen TikTok-ga iyo meelaha kale. TikTok-ga ayuuna caan ka noqday oo muuqaaladiisa dadka aad ayay oo la yaabi jireen. muuqaaladaasna waxaa daawan jiray dad aad u badan, sababtoo ah dadka waxa ay la yaaban yihiin ninkan aadka u qaylinayo asaga dhan derbiga madaxa ku qaraacayo. wuxuu bilaabay marka uu live-ka ku jiro uu xanaaqsan yahay inuu u qayliyo sida eyga. muuqaal ayaana laga duubay asagoo u qaylinaya sida eyga, waxaa la soo dhigay TikTok-ga. muuqaalkaas ayaa viral noqday oo aad loo daawaday. dadka TikTok-ga ka soo daawadayna waxay soo raadiyeen YouTube-kiisa. waagaas waxaa uu
haystay 50,000 oo subscribe hal mar ayuu helay 300,000 oo subscribe la yaab ayay ku noqotay inuu gaaro 300,000 oo subscribe dadka YouTube-kiisa ku soo biiray aad ay u badnaayeen asagoo la yaabay qaabka uu YouTube-kiisa ku socdo June 2021 wuxuu sameeyay in si live ah uu u daawado dadka YouTube-kiisa ku soo biirayo asagoo live stream soo saaray YouTube-kiisa 22 June wuxuu galay 400,000 oo subscribe dadkana waxa ay sameeyeen subscribe-ka ay kala noqonayaan kaliya inay arkaan falcelintiisa ama ka xanaajiyaan isagana waa uu xanaaqaya oo boodboodaya oo uu caytamaya ayagana intaas ay qosol ka dhiganayaan maalintii labaadna waxa uu galay 500,000 oo subscribe maalintii saddexaadna wuxuu galay 600,000 oo subscribe sidoo kale dadka subscribe-ka ay kala laabanayaan haddana u soo celinayaan kaliya inay ka xanaajiyaan asagana waa uu la fahmay uu is xanaajinaya uu qaylqaylinaya hadhowna dadka subscribe ay siinayaan What are y'all doing? So back up! We did it, man. We did it. We did it, man. We did it, man. I'm about to call the police on y'all, bro. You know what? maalintii xigtana wuxuu helay 700,000 oo subscribe habeenkii ayuu seexday sidii maalinkii oo dhan uu live ugu jiray una daawanayay dadka ku soo biirayo wuxuu soo kacay maalintii 29aad ee bisha June 2021 wuxuuna arkay channelkiisa oo marayo 800,000 oo subscribe 12 saacadood kadibna wuxuu galay 1 milyan oo subscribe 24 saac gudahood ayaa ku soo biirtay 300,000 oo qof Next level! It ain't no more It's and deal! Let me get 1 meal, dog! It's fucking 1 meal, man! It's all doing, let's hit this 1 meal, man! soddonkii bishii June wuxuu galay 1,500,000 oo subscribe bishii July wuxuu u dabaaldegayay 2 milyan oo subscribe 3 asbuuc gudahood ayuu ka soo kacay 300,000 oo subscribe ilaa 2 milyan oo subscribe waana YouTuberka kaliya ee haysta scorecaas wuxuu ogaaday in dadka ay jecel yihiin ayna ku haystaan qaabkiisa waalida ah ama uu dhaqmayo isla markiina wuxuu bilaabay inuu ka faa'iideysto dadkan ku xiran ee channelkiisa ku soo biiray wuxuuna soo gudbin jiray muuqaalo asagoo iswaalayo sida eega u qaylinayo kaliya in dadkaas uu ku madadaaliyo muuqaaladaas sababtoo ah dadkan waxa ku soo raaceen muuqaaladan uu iswaalayo sida eegan uu u qaylinayo August 2021 ayuu bilaabay muuqaalo heesa inuu soo geliyo YouTube-kiisa wuxuuna isku bedelay fanaan maadaama channelkiisa ay ku xiran yihiin dad aad u badan wuxuu ogaaday wax walba uu sameeyo in loo daawanayo heestiisa koowaadna wuxuu ku bilaabay isagoo sida eega u qaylinayo wax alla waxa ka qabatana sheegayo heestaasna aad ayaa loo daawaday ilaa ay gaartay Spotify isla markiina wuxuu bilaabay in bil walba uu soo saaro 2 heesood Spotify ayaa aqoonsaday heesihiisa oo aad ayaa loo daawaday Aisho Speed wuxuu noqday qof caan ah oo ka soo dhex muuqday baraha bulshada ilaa dadka caanka ah ee celebrity-ga xiriir ay la sameynayaan ay soo raadinayaan maalmihii la soo dhaafana wuxuu ka qayb galay tartankii kubadda cagta ee ka dhacay UK ee ka soo qayb galayeen YouTuberada dunida caanka ka ah meeshaas ayuu ka soo dhex muuqday oo wuxuu yeeshay taageerayaal aad u badan I think in the first 2 minutes. We are underway. This is not going to be a nice game. Oh, KSI is on the floor. Speed is celebrating. First, the assistant referee just said he prefers Messi. he's to one. Ronaldo. He's one there. A lot has changed since this. His face when he finds out. Oh. Look! He's taken his shirt off. The ref is in trouble. Clattenburg, get protection on Clattenburg ASAP. Seriously, we need to protect Mark. He's a national treasure. Chris MD is playing bodyguard right now. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay